mas-uuliyiintii shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga Soomaaliya ayaa markoodii 11aad ee ololaha isxilqaan maanta ka qabtay xarunta dhexe tiyaatarka qaranka oo dhismaheedu marayo heer gabagabo. agaasimaha waaxda howlaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya mudane Ibraahim Maxamed Axmed oo ku hadlayay magaca maamulka iyo shaqaalaha wasaaradda ayaa ku tilmaamay dhismaha xarunta tiyaatarka qaranka mid muhiim u ah shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed, wuxuuna ku baaqay in laga wada qayb qaato dhismaha xarunta tiyaatarka qaranka oo dhawaan lagu wado in xariga laga jaro. waxa xasuus weyn ah tiyaatarkan 4 sac maalin inaan riwaayadii 15 shimay aan soo galo madxafkan 6 sac habeenimo wax ku akhristo marka aad iyo aad macnaa aan qeyraayo fikradaan u sheegay waxa way dadkeena Soomaaliyeed in wadankeena wax u qaban karno midka jooga gudaha oo anagoo kale hadda aan ka shaqeynay qaybaha oo baahida ay ka jirto marka dadka banaankan waxaan macnaa aan fareena in dawladooda ay taageeraan. Bashiir Cabduqaadir